الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قا سبير اسمه إدريس كنا قبل كسول دقيقة الأسعانات كانت السنة هذا أرمى بالشدة عن أدو فرح سنة ما طينو يصاب غضي صاحب في مولي إسماعيل دقيقة وقت سنة صحافة دا ديجيتال كا إنترنت في وحويان ما عندنا نقف أي كان قالي قاعد سيسي هنا فرين كوان وقدر بني يردا تهريب يسا يكون تهريبين طبعا runtii tahriibku waa aafo ballaaran oo ummadda ku habsatay waxa dhacday in dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan caafimaad bulsho iyo mid nooc kastaba isla markaana ay macnaa dhibaatooyin u geystaan si oo ay ku xidhaan wadamada Liibiya iyo Suudaan halkaas oo waalidka lacag fara badan laga qaado aan awoodin halkaasna dhibaato dhaqaale ka timaado waxaan kula talinayaa waxa dhacday in ardayda dugsiga sare dhameystay ay tahriib ka qaadan waxaan ardayda kula talinayaa inay jaamacadaha waddanka galaan isla markaana ay ka bartaan ama sidoo kale ay galaan dugsiyada xirfadaha vocational schoolska xirfado gaar ah ay sameeyaan sida computerka electricity-ga welding-ka isla markaana uu shakhsiga qof xirfad leh markuu noqdo kulli shaqo u helaya waxaan leeyahay tahriib kala maaha ama maaha kale ah tahriibna dalkan midda labaad ee aan ka hadlay waxa weeyaan in dhalinyarada maanta meel kasta joogaan gaar ahaan si gaar gobolkan aan joogo inay ku dadaalaan si ay bulshada wax u qaban lahaayeen gaar ahaan waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kala duwan arrinka labadan ka hadlay waxa weeyaan inaynu bulsho ahaan isku tiirsanaano dhinacyada wanaagsan inagoo kula tartamayna wanaagga bulshada meel kasta joogaan qodobka kale aan ka hadlay waxa weeyaan in loo baahan yahay in ardaydu ay ku dadaalaan inay horumar ka sameeyaan shakhsiyadooda iyo naftooda iyagoo u maraya tacliinta isla markaana sidoo kalena diintooda si wanaagsan u baranaya waayo xadiis baa ah qofka ilaahay qofka khayr ilaahay la doonayo wuxuu fahamsiiyaa diinta ma yuriid ilaahu khayran yafaqahu fi diin dhalinyaro badan baa kolley dhegaysanaysa oo daafaadiyada joog ugu badan oo niyadda ku haya inay tahriibaan waxaan leeyahay walaalayaal ka digtoonaada khatarta tahriibka ka hortag khatarta uu leeyahay tahriib waa dhimasho waa safar aadan garanayn wuxuu ku dhammaan doono waalidkaaga oo kaa walwalaya ummadii kale oo runtii iyana ka naxaysa waxaan kula talin lahaa inay naftooda wax u bartaan kalan ka hadlay waxa weeyaan arrimaha caafimaadka kale tusaale ahaan inaynu aamino maxaa la yidhahdaa xarumaheena caafimaadka isla markaana aynu iyagoo halkaa inoogu diyaarsan adeegyada ay noo qabtaan halka ay waxaa laga yaabaa in qofkii adeeg caafimaadka gobolka heli lahaa inuu qabto gobollo kale أنا حاسس ليه هاي لون بعنا هاونا سنين في قبل كذا قام شغال وقفته في كلنا أوضاع متمشي كلام مركا حاسس ليه هذا هاي وتشيلي طلع بعد أن قتلنا يحوي يعني كسبسن المقالة إني هرمر بسمين حق يعني بقول حق برشة إن حالي هذا معلمين أنا حنقول سنة إني يقلب كذا أي هرمر كهالك كسي ودان سلامر كان أي أرضي أي عاويان أرضي كله أنا وحبايسن هل أودين في جنس كبيان كوانا نيجو تلاقلان قرشة أي كعاوني يعني سلامر كان أي فري شات وقول جيان حبرشة سلامر كان سي أي أرضي وقولي هذا تذكرنا يا حبرشة أرضي هاي أوردا local NGOs international agencies حويان حولها هي ويكون ماسين إني هلا كسي وضعن أردت كلام كذا وحويان صوب بدنا سا حق الإنترنت dhalinyarada u adeegsadaan khaldan waxaan kula talin lahaa inay ka wantoobaan isla markaana ay ka fogaadaan waxyaabaha pornographiga ama kuwan pictureska ay soo gelinayaan ama waxyaabaha aan ummadda wanaagsaneyn dhinaca wanaagsan ay naga faa'iidaystaan xagga social media runtii social media horumar badan laakiin waxaan danaynayaa inaynu u adeegsano dhinaca wanaagsan cilmi fara badan baa laga baran karaa waxaa laga samayn karaa aqoon baa laga kororsan karaa shaqaad ka heli kartaa marka inay dhinaca wanaagsan ee positive ka always waxaan ku talinayaa stay positive inaad marka saacado qof xagga positive wax ka eegaya isla markaana aragtida ay fog tahay aan aragtida dhinaca negative-kana waa runtii waxaan ku talinayaa inaad ku wantoodaan intii markaa ku mashquulsan waxaan ka rajaynayaa in ardayda ay fahmi karaan isla markaana ay dhinaca wanaagsan u qaadan doonaan in dhawaalaba saxaafadan social media horumar bay samaynaysay waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan inay website-yo fara badan ay sameeyeen waqti wax wanaagsan waxaa la yidhahdaa
waxa laga yaabaa in dadka tag inkoo kale in marka la isku tag garanayo in wixii wanaagsan la isku tag garayo isla markaana acmaash suuban la faafiyo sida website-yada diinta faafiya waxbarashada ururada waxbarashada ka hadla dadka iska wax qabso ka shaqeeya in la isku kaashado wixii wanaagsan sida darteed waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan kooban oo aan u talagalay bahda social media inaan fariinta walaalahayga la wadaago aan salaamayaa dhammaan saaxiibadayda asxaabta kala duwan ee social media ku baranay anoo Ashiba Ismaan Jiris waxaan leeyahay waad mahadsantihiin